سلام كدب وحروك علي فريتانكا وقرا ما هم لا قف في كوباده laga rabay inuu sheexo wadada hadalka maanta ay isugu nimid baa aniga madaxweyne salaanka kadib waxaan runtii badan ka soo boqolay sanaag ma barasaabkayga iyo maayarkii hawl badan baa taalay sanaag laakiin taanu u aanbabaxnay kuna jiray waxay hawshii ninka la yiraahdo Saciid Cawin Caare marka duruufta lagu jiro aan raagnay hawlaha inoo yaala ee kala eegnay annagu dee kolley waxa laga yaabaa sida madaxweynuhu wuxuu eegayo si ka sokaysaan u eegayna oo isagu dee tii qaran buu eegayaa annagu waxa laga yaabaa inaan dee inta badan ku binaysantay qoyskayaga annagu taqaran kama aan ka tagay haddana kolley aragtideedu waxay ku binaysan tahay ta qoyska marka eegno dadka maanta jooga laba qaybood baynu nahoo qaybta xubina waa isku wada qolo wixii isla wax hagaajiyana waa isku qolo qarankeenuna maanta jibindaabiyo uma baahnayn على نبي الله موسى عليه السلام أيا إبليسي بالكسول واحد دوري أنا توبت كيرو وهذا قال إله إلا هذا بدينا توبت كيرو دوري يعني إلهي يسوي دين توبتين فرنت نبي موسى تجي إلهي الله هذا تبدأ على روح ترها حراشي آدم نبي الله آدم تقول سجود نبي موسى سوى توب ولستين تايرون هالسمايو oo waxa lagu xeebo wax weyn ma aha in yar baa lagu xeeyaa intaas uu sameeyo ayaa ku soo noqday ibliis oo wariyaha wax lagu xabaashi sujuud marka iskii wala isku diiday ka noloshii ayaa baa la isku diiday waxa la sameeyo soo guuleysatay cabis baa waxa la sameeyo cabis baa ku madaxweynuhu hayo ku dhawaaqo markay dee wax adkaadaan halka la dhaafi waayo ayaa dee talada lagu soo baan qaadanaya inta iyada iyo in badan oo kala ka nimi waxaan codsi ahaan madaxweynaha ula nimi in Caare naloo cafiyo oo ciidanka naloo qarameeyo oo hubka la farsameeyo oo bartigiisa dambe waxa si naga wada dhamaadaan waxaan filaynaa kelmad qula madaxweynuhu yiraahdo ayuu waxa soo ku xiray وقرشاهي أنا كسر ولا يبدأ حلين هذا ها ضرب الله عبسكه أنا قلت ثلاثة حكي لا في ويده مرة عندي درين حتى لو حنولانها أنت إذا روح القوة صعنا يين بدل الوكيل كاحي إن كلمتها سقرها ما غير هذا هل كان قولي قال أي شغله waxaan ma yahay markii saddexaad shirweyne aan kulli baado madaxweynuhu ka xasuusinaya labada gool horeba waan ku kala tagnay laakiin wax badan lagama raacin waxaan doonayaa hadalka inaan dul maro weyn aanan hoosisii ka waxaan rajaynayaa inay maanta noqoto maalintii wax la raacayay inta markaan ka tago waxa la Xijaaj bin Yuusuf ayaa markii uu dhibanayay Ilaahay bariyay wuxuu yiri Allahumma ighfir li fa inna an-naasa ya'taqiyuna fa innaka la taf'al Ilaahay wuu dambi dhaaf dadku waxay u malaynayaan inaan sida wax aaminsan yihiin inaan saayeelaynin dad badan waxay aaminsan yihiin madaxweyne inaan cabiska bixinayne waxaan odhan lahaa cabiska bix wixii dhaafin ragga kale odhan doona. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim.
madaxda qaran iyo dhaqan iyo baamushtar iyo culimo iyo da' walba la isu timid aad iyo aad baan soo dhaweynayaa mar labaad waa soo dhaweynayaa shirkan maanta fadhinaa wuxuu ka mid noqon doonaa bay ila tahay shirarka taariikhiga ah ee nabadda iyo horumarka dalka lagu urko intaasoo waayeela oo intaasoo dhan soo shaqaynaysay oo huba nin waliba inuu in badan u dib jiray oo caafimaadkooda qaar badan waxu dhimeen oo muddadaa ku fogday oo wuxuu shaydaan ka adeeyay oo aanay ka talinin oo aanay ogoleen u taagla ee dhibaatooyin badan ku mutay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu inaga soo gabagaboobo oo aynu hello xalkiisa inoo wada jira dhammaanteen waxaynu doonaynaa xal qof walba halkan waxaan ogahay dhibaatada uu qof ahaan u qabo arrintan aad soo jeedseen marka hore waxaa inoo guddoonaa inaynu nabad qaadano oo nabad ka wada shaqeyno wax walba nabad aynu ku dhamayno waxaa inoo guddoonaa wax walba inaynu nabadda ku horumarino inagoo isu duuban oon kala sheegsan arrinta dhibaatada sanaa ka jirta ee ciidankaasa laba qodob baa soo dhigteen mid wuxuu ahaa nabad baan wadnaa nabadda nala qabo iyadoo waa guddoono waa ka joogaan ta ciidankaa timid saamaxaad baa soo jeedseen saamaxaadda madaxweynaha intuu awoodinaya waa taqaan lama odhanin waa boqoroo wuxuu doono sharciga uu ka boodi karaa halkaasuu mari karaa saamaxaaddu wadday samaysay sharciyana oo loo maro aniga oo wax waloo nabad lagu helayo diyaar waxa ogol wax wal oo nabad lagu helayaba anoo idin kala mid ah haddana marna qof baan ahay hebelow adigu waxaa adag ka mas-uula qaba ah waxna waa lagula leeyahay oo adigu ma qaadan kartid hawsha inta anigu iyo xilka aan haya xilka madaxweynuhu uu ogol yahay een awooddeeda leeyahay waa qaadanayaa waa fulinaya waxa igaga xiran heer qaranna waddadii lagu fili lahaa baynu wada doonayna oo anigu keligay aanan goyn karayn dhibaatada maanta ka jirta tirada ciidankaa saamax ciidanku wuu kala qaybsamaa ciidanku waxay leeyihiin sharciyo gaara oo ka duwan xeerka madaniga shicibka lagu qaado laba maxkamadood baynu leedahay mid waxaa lagu waata ciidanka midna waata madaniga ah xaalkeenna arrinta ku jirtaa waa arrin ciidan xeer ciidan bay martaa ciidamadu kuwa kale way ka duwan yihiin sharcigooduna wuxuu ilaaliyaa qarannimada ciidanku waa dad aynu isu geynay oo beela ka wada tirsan oo nin walba reerkiisa iyo isaguba sidaa adinku aa wadaan marka dembi dhaco odaygii soo kacayo oo lagu soo qayrinayo oo leeyahay inankii haloo gargaaro dembi uu gala halqaafo laakiin ciidamadu taa ma raacaan maalin walba waxaa maqashaa nin ciidana xerada ka maqlaan maxkamad baa la saaray dembiguu galay maxkamad kuwa kood baa la saaray taasi waxay ku eg tahay ciidamadu inay adkaadaan waayo haddii iminka qof gaari ka dhaco ama gaari jiiro bilowkana waa la xidhaa reeruhu si yimaadaano iyaguba xalka gaara baabka u xidhnaadaa waxaa la waayta maalin walba ciidamada qaranka waa la dilaa cadowga ma aha waxaad maqlaysaa nin buliisaa ku dhintay rabshad waxaad maqlaysaa nin ciidan nin xabad kaga fakatay odaygu ma soo dhex galo cid looma doono maxkamadda ciidamada la mariya xataa ilaa dilkiisa waa waxa ciidamada loogu siiyey markaa sharci gaar ahay wixii adigu aan awooddeeda tahay iyo xukumad ahaan kow ciidamada waxay u qabseen saraakiil iyo askar waa kala kiis inamada halkaa jooga sarkaalkaa sare ee magacowdeen ee hor jooga mooyaane intooda kale dhammaantood saacaddaa laga bilaabo wax alle wixii qaranku dambarta waan ka saamaxay waana la saamaxaya waxaanay diyaar u yihiin galabtadaa in guddi farsamo loo saaro ciidamada qaranka ay ka mid noqdaan toos sharcigaa iyo laakiin saraakiisha sare ee hogaamiyaha gaashaamaha sare ee halkaa jooga maanta waxaynu u baahannahay inaad ii soo martaan sharcigan ku saamixi karo sharcigu wuxuu ogol yahay oo saamixi karaa marka dambiga intaa eeda intaa la joogto qofkii inuu xiran yahay oo dembigii uu qaatay uu xabsi ku jiro oo laga fikiro qofkii dembigana waa ka baxay waana ka cafiytan usulna saamix awoodtaa saamix qofkii dalka ma joogo 93 baa iga hortaagan awood keligay aan sarkaal sare oo ciidankiisa ka horyimid aan keligay goyn kara hadday tahay intiina ma baan diideen wax walba waan siisan lahaa laakiin waxaana qaadi karay xaaji cabdow qodobka aad sheegaysaa iga hortaagan
maanta tiri bay iga hortaagan wuxuu leeyahay dadka isku hay oo qofka dembi gala dembigiisa baa ku qaban qadii kale qofka dembi galay sheekh sida quraanka waa sheegtay da adaba ka buusaday ya ayad quraan ah sheegay soo adu adoonto ya ayuha alladina aamanu kunu qawamina bil qist walaw ala anfusikum aw al walidayn aw al aqrabin war qofku markuu dembi galo de ku joogso jooji hatta haduu naftaada yahay hatta haduu waalidka yahay hatta haduu qarado loo ka qariyo oo fudud aniga halkii bay taagtay jadka madaxweynaha dadka waxa qaadaysa sharci isku taagay waxaan soo gabagabeynayaa ergadii saasaan u aqbalay wixii sharcigu uu leeyahay waalaikum warahmatullaahi wabarakaatu kulay day waa hore loo sheego anigu eedaydu iska badnayd laakiin raggan oran maayo waa ku raacsanayo waxaan oran lahaa war haddii xukuumadda caqligeeda aynu ku kala badbaadi weydiin keenaynu ku kala badbaadayna arrinkaas ku qaadanayna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waanu kula qaadanay arrintii aad natiiso go-aankeeda waanaynu ku dadaalaynaa sida aada noogu doonisay inaanu ku dhammaysano oonu ka soo qaadno arrin aan laga noqon karayn waxaanan jecelahay dadku af soomaaliya si fiican unooga yaqaano oo turjumaadiisaba ku adag marka hore laakiin arrinta day imika go-aamisay way noo cadday waanu kula qaadanayna arrinkaasi waanu kusoo gabagabeynayaa arrinkaasi arrin dib looga noqdo wax ma aha sidaa aan ku hambalyayno madaxweynaha iyo waxaan aada iyo aada iga mahadnaqaya odayaashiina waayeelka ee 2 sano 4 sano la dhow intaa soo jiray ee intaa wanaag doonay ee kolba shaydaan ka adeegaya inta la kala tuuro haddana eedda iyo dhibaatada la saaray ee anugu wanaagga oo socotaan maanta inuu halka kaga tirina in badan oo sharka jecel ay balaay ka sheegi doonto adkaysiga iyo garashada dadka qaranka raacdeen aada iyo aad baan ka mahadnaqaya qarankuna waa idin ogyahay annaga xukuumad ahaan iyo dowlad ahaanna waa loo guddoon iyo rag nala dhisay qarankii oo wax ku adag qaatay taasuu baana way ku dhisma karaan waxay u adkaanayaana waxa weeye dadka idinka dambeeya ee maamushaan dhaqan ahaan suldaan caaqil oo wax badan oo macquul ahayn xasaasiyadu la keliyey waxaan ogahay dhibaatada jirta taa usoo badhaynaya tooraba waa idinka mahadnaqaya cid waloo dhibaato lasoo gudboonaatana inay sidaa yeesho oo danta qaranka ka horisanta kale ayaa tusaale u noqonaysaa suldaan maxamed oo uga mahadnaqayaa oo hadduu yidhi waa dowladda haddii hadday soo taagtayna waan qaadan dee qarankii baanu eegaynay ilaa anagu qol ahaan waxba umanaa cadaadinaynay inaad qarankii nala eegteenna waa idinka mahadnaqayna halkaanu qaadanay intaa aada qaateen waa idinla xajirayna waxa la yidhi haddaad sidaad jeceshay weydo dee sidaad ka maarmi weydo waa la yeeshaa allayla maanta waxaanu jeclayn iyadoo labeentii reerka ku hor fadhiyaan inaad tiraahdo kaxaysta aqbalay aada baanu jeclayn laakiin sharciga waxbaad noola baydheeyo distooriya waxbaad nala qabatay carabtuna waxay tiraahdaa alwasta fooqa alqaanuun taa inaad noo egtaabe wastadu waa ka sarreysaa qaanuunka ayay nimanka yaahdaan carabtu waanu lahayn maanta alwasta fooqa alqaanuun inaad wadaaban doonay dee nagu diiday wax badan adoo xeerinaya kollay intayadan aqbalka tiri waanu la iga horreeyey anna aqbalay mur hadday ka qadhaadhaanayso raggii iga horreeyey waddaday jeexeen ayaan kula shaqaynayaa kuna raacay insha allah waxaan rajaynaya inay guul ku dhammaato biidni illah alkariim